Okay. Welcome to Funding Packages News. Breaking news. Goldstar Live has become first prop trading firm in Asia and Africa to land a contract with big investors. This gives an equal opportunity to every trader who can make 5% profit in a month from Forex market. Goldstar Live is a company based in Zambia, Germany, Turkey and Oman. This amazing company offers 2 different types of live accounts, a $50,000 diamond package live account and a $25,000 silver package live account. Traders from anywhere in the world can take advantage of this opportunity. To become a member, visit the Goldstar Live website, www.goldstarlive.com. Okay, mar labaad soo dhawaada horta waxaan filayaa qof walba oo idinka idin kamid ah inuu warbixintii soo akhristay website-ka wax walibana uu soo akhristay marka waxaan jeclahay marka ugu horeyso wax yariisa inaan systemka idinla dul maro kadibna markaan systemka idinla dul maro kadibna aan idinla dul maro wax yar oo ku saabsan waxyaabaha qofka traderka laga doonayo haddii aad tahay walaal trader inta ku jira oo laakiinse aqoontiisa aan gaarsiisanayn in uu 5% bishii sameeyo 5% waa garan kartaan waxay noqon karto lacag walba oo meesha kuugu jirto tusaale ahaan ka soo qaad $1,000 baa kuugu jirto meesha $1,000 5% oo kamid ah imisa weeye $100 baa kuugu jirto $100 5% bishii ma samayn kartaa haddaad $100 oo kuugu jirto bishii 5% samayn kartid 50,000 5% waa ka samayn kartaa 100,000 5% waa ka samayn kartaa 200,000 waa ka samayn kartaa muhiimadda kaliya waa intaas wallahi xaqiiqda forex-ka waxa weeye anagu waxaan shirkadan aasnay muddo 1 sano iyo xoogaa ka hor balse dadka markaan u soo bandhignay funding package baan u soo bandhignay kan aan maanta hayno baan haynay wuu ka qaalisanaa YouTube-ka waad ka eegi kartaan dib baad uga baari kartaan presentationka aan waaga soo gelinay wuu ka qaalisanaa laakiin lacagta ka qaalisanayd waxaan soo bandhignay sidoo kale account management baan soo bandhignay xafiis ayaan waxaan ka furanay magaalada Muqdisho 1 sano iyo xoogaa ka hor so systemka anaga doonayna account management-iga wuxuu ahaa waagaas in qofka uu account ka furto brokerada aan la shaqeyna kamid ah kadibna aan ku xirno MT4-keena masterka ah deetana dadkii aan saas ugu shaqeyno balse dadkii waxaanu u sheegnay inaan u samayn karno kaliya bishii 10% laga yaabo hadduu suuqa wanaagsan yahay 20% na u sameyno yacni dadkii markaan ku dhahnay 10 ilaa 20% ma idin samayn karnaa waxaan kaloo u sheegnay dadkii inay saxiixaan riski inay ogol yihiin inaysan noo qabsanayn haddii aan 20% lumino sidoo kale qofku waxa laga doonayaa passport iyo documenti systemkaas markii aan xafiiska Muqdisho aan u bandhignay dadkii website-keenana aan ku bandhignay dadkii aan u soo bandhignay dadkii isla markii waxa yimaaday shirkado markaasi 60% u balan qaaday passport aan ku xireenin waxna aan ku xireen isla markii yani anagu waxaan noqonay waxay dadka u sheegayaan wax yar noqday yani 10 ilaa 20% xaqiiqdii 60% kibay dadka wada aadeen so sidaas account management-igu way noogu suurtageli weysay muddo kadibna xafiiska Muqdisho waan iska xirnay funding package-kana waagaas maynan soo bandhigin yani presentationka waa ku soo darnay laakiinse maynan furin dhowr qof baan u furnay isla markiina lacagta waa u celinay dadkii because awood maynan lahayn dadkaas waagaas in aan lacagihii profit-ka samaystaan inaan gaarsiin karno because qofka inuu iibsado waa wax fudud inuu wax iibsado qofkii waa wax fudud laakiin qofkii inaad profit-ki gaarsiisid baa muhiim ah anagu awoodeena taas marka waagaas maynan haysan sidaas daraadeed waan joojinay dib u raaca YouTube-ka ka baara presentationkaas waxaad arkaysaan wax waliba aan waagaas haynay hadda awood waxaan u yeelanay dadkii inaan profit-kooda gaarsiin karno sidaas daraadeed baan u soo bandhignay sababta kale aan u soo bandhignay waxay tahay waxaan ogaanay inay dadkii aqoontoodii korortay ee ogaadeen
in 50% iyo 100% inay bishii raadiyaan ay adag tahay wixii aan waagaas aaminsanayn dad badan ba hadda aaminay laakiin waagaas waxay dadku aaminsanaayeen $1 inta ku shubaan bishii 10,000 sameynayaan 5,000 sameynayaan waxaan macquul ahayn so maadaama hadda dadka reality-ka yimaadeen en lacago fara badan ay ka gubatay sidoo kale to wadankii lacagihii laga soo wada saarayo deposit ahaan looga soo wada saarayo wadankii dhaqaalihiisa hoos u kacayo wixii maciishadii korayo xitaa waxa la ii sheegay wadankii dhulalkii qaarkood inuu raqiis intay noqdeen wax iibsada la waayay qaarkood because lacagihii dhan laga soo saaray marka waxaanu doonaynaa inaan wadankiina badbaadino dadkiina aan tusno wadada saxda forex-ka uusan ahayn forex meel taajir looga noqdo dhaqso ay u baahan tahay wax waqti iyo dulqaad badan u baahan forex-na laga sameyn karo 5 ilaa iyo 10% hadday u badato 20% bishii xaqiiqda markaas ku sheegno wixii 20% ka badan waxa weey yani waa risk weyn baad qaadanaysaa so systemka ayaa hadda marka waxaan sameynayaa idin share gareynayaa qofka markuu traderka iska sorry gara lahado qofka traderka markuu forex Gold Star Life iska diiwaan geliyo wuxuu helayaa dashboard-kan buu helayaa dashboard-kan wuxuu awood u lahaanayaa wax waliba oo markaas uu u baahan yahay halkan wuxuu ka dalbanayaa productiga uu rabo so labadan product caawa waa nii kala sharaxaya because codsiyo fara badan baa la soo gaarsiiyay oo la leeyahay bal xogaa yar dolmar oo sheeg mid waliba faa'iidadiisa iyo yani faa'iido daradiisa yani mid kale faa'iido badan oo kaleeto halkan qofku uu tagayaa community-giisa wuxuu shaqeynayaa qofkii documentigiisa buu halkan upload gareynaya laakiin documentiga goormuu upload gareynaya wuxuu documentigiisa soo dirayaa markii paymentiga uu sameeyo uu dalbado akoonka uu rabo marka uu akoonku rabo dalbado buu soo dirayaa so halkan username baa ku yaalo qofka marka hore fikirkan waxa username-ka inuu kan geliyo balse IT teamka uu sheegay inay email ka dhigaan laakiin hadeertan laftirkeeda muhiimadu email buu qofka ku soo qoraya emailkiisa emailkiisa ku soo qoraya halkaas kadibna passportkiisa ama ID-giisa upload dhahaya iyo proof address-kiisa macnihiisu waxay tahay tusaalahan dadka Soomaaliya joogo kale proof address ma haystaan waxay haystaan qaabkay brokerada u furtaan ma doonayna sii galo qaabkay brokerada u furtaan so kadibna send buu dhahaya qofka marka waxaan fiirinaynaa payment-igi successful ma aha documentigiina ma soo diray haddii labadaas ay dhacaan oo marka hore payment-igi markuu sameeyo documentigiina ay yimaado qofkii shaqadiisa akoonkiisa waxaan insha Allah ugu waxaynaynaa adiga muddo hal maalin ilaa 2 maalin oo kale tusaale ahaan markuu maanta sameeyo waxaan isku daynaa inuu biri helo ama biri dambe haddaysan shaqadu ama cilad kale aysan imaan shaqadu badan so laakiinse guushiina waa sidaas halkan edit account buu sameyn karaa muhiimad weyn ma sii lahan oo qofkii doonaya unbaa galaya yani passwordkiisa inuu bedelo oo kan inuu bedelo waxaas inuu bedelo so wuxuu qofka kale halkan markii uu halkan tago withdraw uu sameyn karaa withdrawgaas macnihiisu waxay tahay qofku markuu 5% sameeyo ayuu withdraw dalban karaa waa 5% qofkii inuu sameeyo percentage-yadii baa inta ku qoran 5% 10% yani 50% waan ugu badinay so any percentage uu qofka sameeyo uu dalban karaa so laakiin so in at least 5% ay meesha ku jirtaa yani mar walba 5% baa profit loo bixinaya 10 waa loo bixinaya 15 20 sidaas oo kaleeto so tusaale ahaan ka soo qaad qofka bishaan awood u muusan lahayn inuu 5% ka gaaro qofkii lacagtiisa meesha ugu jiraysaa laakiin soo inuu subscription-kii mar labaad bixiyaa so inuu mar labaad bixiyaa si uu u gaaro percentage laakiin lacagtiisa kama gubanayso profit ku sameeyay akoonkiisa meesha ugu jiraysaa ilaa iyo muddo 6 bilood ah so hadduu saxiitaan dhowr bilood uusan active noqon ilaa 6 bilood lacagtiisa meesha ugu jiraysaa so marka waana sababta aan u leenahay waxay dan ugu jirtaa kaliya qofkii 5% sameyn kara bishii qofkan 5% sameyn karin dan ugu ma jirto waxaan kula talinayaa qofkaas oo kale inuu mar labaad xogaayar education-kii wax yar dib ugu laabto so inta helbi weeye tusaale ahaan waad garanaysaan hadda brokerada ama shirkadaha markii dhibaato aad chat support uga sheegtaan waxay dhahaan ticket baan nii sameynaynaa
oo arintaas waa la baaraya arintaas waa laga shaqeynaya qofka marka traderka laftigiisa awood waxa uu sameeyo inuu asaga tigidhka sameeyo wuxuu qorayaa wax walba inta laga rabo cinwaanka tigidhkiisa ku saabsan yahay email warbixintiisa halkaas ku qoraya hoosna submit buu leeyahay wuu dirayaa so back office-kiisa dhan sidaas uu eg yahay so marka waxaan dib ugu laabanayaa labada product oo hayno so labadan product way waa yani laba account baa dadka awood u leeyihiin waxay taxaana lagama qaadayo laakiin waa inuu qofka aaminsan yahay 50% inuu sameyn karo so account-ka marka anaga 25 kulama talina dadka 25 waxaynan dadka ula talinin lotsaskiisa ayaa aad iyo aad u yar yahay taasina waxa ka baari kartaan website-keena laakiin qofka isaga go'aankiisa leh turo uu dalban karaa so lotsaskiisa ayaa aad u yar laakiin kontonka 5% inuu sameeyo waa wax waliba ka badan inuu sameeyo macquul ay tahay ilaa 10% sameeyo laakiin 25 xogaa way adag tahay laakiin inaan ka saarno waa rabnay laakiin waa liiga codbaday in aan meesha u daayo aniguna waxaan ahay dadka maxaa yiraahdaa ma jecel go'aanka in aan kaliya qaato waxaan jeclahay inaan dadka la wadaago dadka igu hareeraysan so maadaama liiga codbaday un baan isaga daayay laakiin kontonka kun baa dadka kula taliyaa si ay 5% awood u lahaadaan maxaa yeelay lot size-ka uu ka weyn yahay lot size-kana walaal fadlan waxa sameynaysaa website-ka galaysaa ani hadda ay weydiiso kama jawaabi karo because kama warqaba lacag walba lot size-ka lagu galay waxaad ka helaysaa trading guideline markaa gashid waxaad ka helaysaa tabeelo weyn tabeelahaas baa akhrinaysaa hadduu tabeelahaas ku qanciyo isdiiwaan geli warbixinta ku qoran haddii ku qanciyo isdiiwaan geli hadduusu ku qancinna ha isdiiwaan gelinin so because anagu waxa noogu muhiimsan in number 1 magaceennana uu xumaan ceeb noo soo gaarin oo ah in waana la dhacay waxaana loo sheegay qiyaamo lot size beenana loo sheegay qiyaanana loo sheegay kanaan lagu wixii yani waxaas oo dhan istawamarintaas oo dhan ma dooneen marka qof walba inuu asaga warbixinta maskaxdiisa soo qaato soo akhristo meel walba soo akhriyo terms and conditions soo akhriyo wax walba soo akhriyo kadibna uu dalbado wuxuu doonayo wuxuu ku qanco productiga uu ku qanco so muhiimadda kaliya waa intaas lacag walba waa ku gali kartaan labadaba iyo dahabka kuma gali kartaan bitcoin oo kaleeto nasdaq oo kaleeto US30 oo kaleeto wax yani kuma gali kartaan lacagaha forex-ka caadiga iyo dahabka ayaa ku gali kartaan so aan ku soo laabto hal jawaab oo sababta hadeertaan Sobe inaan active kuga dhigin cilad yar oo haysato hadda waa kan waxa weeye Sobe account-ka shirkadda ay leedahay testi baan ku wadnay because testigan ku wadnay waxay tahay waxaanu doonaynaa walaal xogaa mobilka dhigta ka fogay maybe waxbuu isqorqoraya waxaanu doonaynaa anagu ciladan inaan marka hore saxno because waxa ku jiro mid failed noqday mid success noqday mid pending noqday marka waxaanu doonaynaa inaan meeshan ka heli karno yani inuu soo gaaro kaliya midka success-ka ah maxaa yeelay midka hadduu mid walba ku soo gaaro waqtigu ka luminaya so marka ciladan inaan saxnaan jecelnaa markaas ka bacdina aan ka dhigno wax walba automatic laakiin inta ka horeysa insha Allah tacaala waxaan partner ahaan ama xawaalad ahaan aan u isticmaalnaa qolo xawaalad ah oo lacagta noo aruuriso kadibna noo soo dirto qoladaasna aad iyo aad baa ugu kalsoonaa qoliyo waxa weeye Omaya Express baa la yiraahdaa so anaga mas'uul naga ma aha laakiin ayaga mas'uul waan ka nahay because waxaan ayaga mas'uul uga nahay markaan adiga tusaale Sobe customer markaad ka tahay customerka mas'uul bay ka tahay anigana ayaga waxa weeye mas'uul waxay iga noqonayaan haddii lacagtii maxaa la yiraahdaa aan dhaco kaleeto yani xilli laakiin dhaqso yani ma ku soo celin karaa laakiin haddaan ku dhaco kaleeto يعني waa dacwoon kartaa waxa leeyahay war hebel maxaa ninkan u dhacday war saano maxaa u dhacday hadda Omaya Express waxaan anaga u dooranay waxay tahay waa dad aan ku kalsoonahay inaysan lacag u dhiibtaan aysan dhicinin waa dad aan ku kalsoonahay lacag u dhiibtaan inay noo soo gudbinayaan sidoo kale tana adinkana markii aad lacagta bixisaan waaba la soo xiriirtaan Telegramka waxa dhahdaan lacagta waan bixinay email dadka ka qoraan way noo soo gudbiyaan saas baa shaqada marka sababta saa u sameeyno waxay inaan shaqada sii bilowno ee dadkii aysan u sii xayirnaan automatic iyo waxa soo kaleeto credit card-ka sababtan meesha waanu haynaa
oo credit card waa ku jira website-ka waliba PayPal ba ku jiro laakiin aan tusaya PayPal iyo credit card qofku ku bixin karaa laakiin waan stop gareynay sababta uu stop gareynay waxay tahay number 1 qofkii credit card markuu ku bixiyo tusaalahan qofka ka soo qaad Soomaaliya jooga percentage buu ku bixiyay bangiga uu ku bixiyay Premier Bank waa tusaale soo qaadanayna waxa la yiri wuxuu ka qaataa percentage I don't know whatever percentage buu ka qaataa qoliyaha annaga payment gateway-ga noo hayana oo lacagta collecting noogu sameynayna percentage base ka sii qaadanayaan so that means 2% ba qofkii laga qaadaya taas waa mid labaad aan u sii dooranay maxay tahay mid labaad aan hadirtan u sii dooranay qaybta Soomaalida waxay tahay in aan caawino businesska Soomaaliga ah waa tan labaad businesska Soomaaliga in aan caawino maxaa yeelay meesha aan business ajnabi waxaan waa lacag numberkaas qofka Soomaaliga iga faa'iido meesha ajnabi iga faa'iidi lahaa so tan labaad taas tan saddexaad waxay tahay sababta asaas u sameeyay markuu qofka international payment-iga uu isticmaalo lacagtiisa wuu hold gareysmaysa asagana waa laga hold gareeyay annagana way naga hold gareysan tahay oo isla markii maxaa la yiraahdaa akoonka uma sameyn karno ilaa lacagtii la soo fasaxo akoonka uma sameyn karno so marka si dadkina degdeg ay waxay ugu helaan baan u dooranay way jiraan customer badan oo hadirtaan ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta ilaa ay daraad soo dalbaday helay qaar ba helay qaar way soo direen promotion ahaan bay dadku ugu soo direen teamka supportka qaar may soo diray dadku isku mid ma ahan so qaarna way ku soo mahadcelinayaan waxa ku leeyahay walaal waan helay sawiranta ku soo diraan qaarna kuma soo dirayaan so marka teamka qaar baa u soo diray ku soo diray aad bay u mahadsan yihiin kuwan u soo dirana sidoo kale way mahadsan yihiin marka waxaan u gudbiyaa su'aalaha walaalayaal su'aalaha basic ah dhinaca iska ilaalino waqtiga badan ma haysano maxaa yeelay xaqiiqda markaan ka hadlo shirkadaha waxaan oo kale tahayo Zoom ma soo galaan waqtigaas Zoom kani ma soo geliyaan wax walba website-keeni geliyaan live chat support bay sameeyaan waa la macaamiltaan laakiin hadda aragtaan qof Soomaali oo business-ka wadana waxaan iga codsan lahaa inaydan adinkana waqti badan aydan culays sii saarin يعني sida aad dadka ajnabiga shirkadahooda aad ula macaamiltaan oo yani distance-iga xushmada aad u siisaan oo kaleeto baan jeclaan lahaa anagana inaan noo siisaan waqtigana aan ilaalsano aan yani extra si walaaltinimo anaga Zoom-ka u soo galnaa waxaan ku qasbannahay maahan laakiin waxaan jecelnahay in dadkii aan u soo dhawaano oo isbarano aan u soo dhawaano ma jiro maanta website-yada marka gashaan waxaan ka shaqeysta ma xitaa kuma arkaysaan sawirka qofka shirkadaas mas'uulka ka ah ya xitaa kuma arkaysaan laakiin qofka Soomaaliga uu ka iibsanayaa asagoo la murmin asagoo la hadlin asagoo su'aalay yani annagana weydiinayo kale uusan weydiinin marka walaal insha Allah ta'ala su'aalaha waa nii furaya si deg aan sameeyno laakiin soo in su'aalaha ay noqdaan dadka gacantiina taagan kadibna aan ku hormariyo dadka gacanta taagay sida u kala taageen kadibna aan su'aalihi soo goobno walaalayaal marka waxaan ku hormarayaa Cabdullaahi Yare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم ورتوا كسلامة أستاذ الخالي. وحنا مركه قاعد صار عدي سوالد هلين ضد رنتي لمد أيجا ولا الكودا ومعلن وبرامج كاني وإسكت جعلي سؤال بدن ويديان مركه وكرر لقلنا نيشة سؤاله إنه عدي بطان مركه الله بعد وحنا ربعنا كويدي يلا عكت registration كاه haddii qofka is register gareeyo akoon konton kun ay iibsado bishii uu gaari waayo 5% bisha labaadii ma registration kale ayuu bixinaya si uu shaqadii u sii wato oo lacagta registration kuma bil walba mase waa bisha koobaad oo kaliya okay su'aalaad fiican walaalo su'aashaasna markaan xogaa yar bilaaway baan xitaa وكرر لنا وحلقة يا بنا نحن كسوق بصدي وضدك ما قف مرو يشيء وكسوق تحمى بليج كان سجى. بمن حوجه دايما بالمرة ولا واحد جرورتا لو سيستم بايجرو لو سيستم بايجرو سيستم واحد جرو يعني فندing باكيج ودن لو سيستم بايجرو سيستم واحد جرو ولا قف كلايف أكاونت إسلام كيلو دي بيو وقولي ده هي قفيه وهذا أميسنت هاي سماه يا سيستم ديمو
kan demo-gana waan haynaa laakiin kan aan hadda hayno waa qofka hadduu 5% ka gaaro lacagtiisa laga bixinaya haddii uusan gaarin waa inuu jeebkiisa ka bixiyaa وينو jeebkiisa ka bixiyaa so qofku waynu jeebkiisa ka bixiyaa marka waana sababta aan u dhahno qofka hadduusan awood u lahayn 5% inuu sameeyo inuu isdiiwaan gelin systemka kale oo hayno laakiin aynaan soo bandhigin oo ah midka demoga ah qofka hal mar buu isdiiwaan gelinayaa tusaale ahaan 10 kun wuxuu isku diiwaan gelinayaa 190 mise 180 170 I don't know exactly ma hayo yani nambarada waa haynaa laakiin dadka umaynan soo bandhigin because sababta aan soo bandhigayno weyna waxay tahay dadkii 95% way ku dhacayaan waxayna noqonaysaa lacag in dadkii aan xigmad darro uga qaadno qofkii jeebkiisa aan fuqnay sababta ugu dhacayaana maaha walaal aqoon darro ee waxa weeye emotionka trade-ka marka qof walba trader ah traderadu 95% waxay lacagta u lumiyaan waa emotion iyo greedy yani inuu qofkii hamigiisu sii weynaado oo lotsaska weynayo iyo emotion labadaas kaliya lacagta u lumiyaan dadka aqoonta leh 95% lotsaskina waan xayirnay emotionkina waxaan uga dhignay live account uusan emotion badan gelinaynin waana sababta kan aan u soo bandhignay marka su'aashaadu waxaan filaynaa ka jawaab ahaa uu bixinaya haddii qofka 5% awoodi karin bish inuu sameeyo ma anfacayo inuu trader ka mid noqdo system okay aad baa umahadsan tahay su'aasha labaad waxaa qofka gacanta taaga waxa weeye mahad abdi haddii qofka halo wax yar yes walaalo ustaadi hadoo raalli ah haddii qofka 4% uu sameeyo 5% hadduu sameeyo waayo package-kiina aad sheegtay inuu mar kale isu soo register gareeyo si uu jaanis kale u helo lacagtaas ayada ah oo haddii diiwaangelinta ah profitkiisa may ka go'aysaa ma 50gii aad adinku company ahaan goosanayseen ayuu ka go'ayaa ma asiga 50giisii ay ku jirtaa mar walba lacagta registrationka haddii uu sameeyo 5%ga 5% ka hadduu gaaro qofka lacagta profitka asaga uu la baxayo baa laga jarayaa profitka uu asaga la baxayo baa laga jarayaa taas macnaheedu maxay tahay waxay la mid tahay asagoo jeebkiisa ka bixiyay so hadduu sameyn waayo waa marka uu jeebkiisa soo bixinayo laakiin hadduu sameeyo 5%gaas marka 50gayga may ka go'aysaa mase lacagta totalkan sameeyay ka go'aysaa 50gaagi ka go'aysaa 50ga asagu leeyahay maxaa yeelay 50%ka waxa la investoro waxay anagu leenahay maaha waxaan yani 50ga kan subscriptionka bishi uu qofka profitkiisa laga bixinayo waa midda shaqada guud loo qabanayo ma sabta mahad maan ku hormaro mahad adigoo mahadsan waxaa odhan lahaa dadka su-aasha qaba gacmaha soo taagta si u kala horeeyaan su-aasha u kala sii qofkii su-aal qaba gacmaha soo taagto mahad aan hormarina marka mahad anigu saasoo sameynaya laakiin dadka laftirkooda mahad cabdi wuu jiifaa okay استاذ محمد يقوى استاذ محمد رضوان ها استاذ مين مقشع استاذ ما مقشع رضوان اوكي mahad cabdi baan maqlayaa mahad cabdina waa qofka ku xigay ها استاذ مين مقشع ها waa ku maqlaynaa استاذ ما شاء الله waa ku dhawahay barnaamijka su'aashan waxa dokumentiga qofka looga baahan yahay oo kale baasaboorkiisa hadduu yahay dhamiya oo kale 4 bilood ma 5 bilood ma proof garee karaa hadduu dhacsan yahay ma dhacsan laakiin waxa uu dhiman waa muddo yar waad isticmaali kartaa international KYC uu aqbalayaa hadduu markaas uu shaqeynayo way jiraan yani marka ilan kuma duuleysid waxaan kuma duuleysid haddaa ku duuleysid baa wadamada haddaad baasaboor ku duuleysid internationalka waxaa laga yaabaa wadamada inay ku yirahdaan 6 bilood inuu uu shaqeynayo laakiin so maadaama ay tahay verification KYC system baa jiro ay isticmaalaan waa inuu markaas uu shaqeynayaa uu yahay mid sax ah oo yani deedkiisu uusan dhacsaneen okay marka ustaad adeegan oo soo bayga in
approve gareeyey soo fahmaya ama sida lacagta lagu soo diro oo kale faahfaahin so taasoo kale magasiin soobay walaalo hadaayay baa sharxay oo soobay xogaa cilad baan saxaynay oo weliba screenka waataan share gareeyo nitusayay ciladahaas inaan saxno ma ahane inaan soo bandhigno ciladahaas in aan saxno ma ahane marna soobay hadda inaan marka hore sii isticmaalno cilada systemka dhankeena naga haysta wey marka hore kaas baan saxaynaa waa kii aan ila share gareynay marka hore so insha Allah taala marka ciladahaas saxno baan soobay isticmaalina laakiin haddaad doonaysid haddeerta inaad sii dalbadid oo kaleeto waxaa raacaysaa systemka dadka kale haddeertaan akoomada intay dalbadeen helay raacay oo kaleeto laakiin adiga kugu xiran tahay inay sugaysid systemkaasi muxuu yahay systemkaasi system midis codka hal markaa xiraya Mr. Xamso walaal yani waxaad ku bixin kartaa jawaabtu waxaan wadaa mahad weli okay waxaad ku bixin kartaa systemka Omaya Express oo xawaalad markaasi lacagta aruuriso la yaqaanana anagana aan ku kalsoonahay oo xafiis magaalada Muqdisho ku leh xawaalada sideed ahaan waxay awil hore ama haddaba ka shaqeysaa weli toole lacagaha depositkay dadka u dhigtaa brokerada u dhigi jirtay haddana way u dhigtaa qasab weli toole maxaa yeelay weli dad brokerada ku trade gareeyo marka depositkana way u dhigtaa withdrawgana waa u marisaa marka annaga waxaan u wakiilanay maadaama systemka online-ka iyo weli toole uusan 100% noo hagaagin in manuel ahaan ee lacagtii noo soo collect gareeyaan ee annaga nagu soo wareejiyaan so collecting day ku sameeyaan annaga nagu soo wareejiyaan intaas kaliya noo qabtaan marka waana kuwa aan ku kalsoonahay qofka u dira lacagta wuxuu helayaa screenshot asaga laftirkiisa helayaa ama xawaalada xitaa hadduu tago uu helayaa waraaqdii hadduu qof u dhiibo oo partnerkooda kamid ah wadamada joogo oo kaleeto iyaga ku xiray aniga kuma xiri karo bangi ma siin karo number ma siin karo waana sababta bangi aan idin siin weyna waxay tahay waan soo dhigi karnaa bangiyadooda laakiin ma doonayno in wax yar oo qalad u dhaco because waxa dhici karto dad baa iska diraya markay rabaan يعني waxa u maleynaa inaan weligood la shaqeynayno yani war mar walba iska dirayaan wax kasta dhici karo marka sidaas salaadeed waxaan dhaanay qof walba oo wax dhiganaya weyno ayaga marka hore la hadlaa yiraahdo xagee lacagta nigu soo diraa waxayna weydiinayaan maxaa ku fudud kadibna ku sheegayaan waa u diraysaa kadibna isla maalintaas way noo soo gudbiyaan listiga waxaan leenahay system online oo sameeysan naga dhaxeeya aniga iyo ayaga okay soo kuma mahadsantiin السلام عليكم Ridwan waxaa ka horeyn lahaa أنا كوري السلام عليكم أستاذ رضوان واي Ridwan aad baan ku maqlayaa laakiin waxaa ka horeyn lahaa qof magaciisa la baxay ma garanayo Gold Star Life Funding Trading ninkaas soo dhaweyno qofkaas أوكي Gold Star Life Funding Trading soo dhawow who is that guy wani magacii baa xoogtay waan dhawaa ustaad waxaan joogaa magaalada Muqdisho okay soo dhawow walaal horta weli waxa waa maartay Gold Star Life Funding Trading waa iskaga qortay maahan weli maartay si toos ah shaqada ugu bilaabay laakiin waxaan rajeynayaa mar dhow insha Allah in maartay members ka kadib noqoto su'aasheedana waxay tahay package-ka mataqaanaa macluumo package-ka markaad hoos u raacdo ba payout meesha ku qoran tahay 50 oo kala 50000 oo kala ku qoran 1250 by payout oo ku qoran marka meeshaas macnaheedu maxay tahay su'aalaad fiican walaalo waxaan sameeynaa waan shirkadeenayaa shan wax yar u sharxo just waxa weeye walaal wax kala maahan waa just percentage weeye macnaheedu waxay tahay marka waxaan hadaaya Soomaaliga uu ku sheegayo oo kaliya weeye 5% marka sameeysid ba pay out-ka sameynaysa yani kontonka kun 5% marka sameeysid waa $2500 50% ka leedahay oo lagu siinayo way pay out-ka waxa ugu yar waa gartay waa maasanta danka oo waxa xamar su'aal kale aan weydiiyo ustaad okay waa tawlalo السلام عليكم xagga maartay oo ID-yada
سؤال يارتي وحيرا ما وكو فسحي ولا وكو فسحي هاي waxaan maaragtaa dhanka ID-ga hadda aloo kale mataqaana waxaan FX Primacy broker FX Primacy isticmaalaa marka wax maaragtay passport isku diiwaangelin wax isku diiwaangelin warqadaha caadiga maaragtay oo gobolka u bixi maamul gobolka warqad maaragtay cadeynaysa maaragtay oo citizen aan ahay camal marka iyo proof residence oo aan ka soo qaatay Premium Bank sidaas ay ugu ogolaadeen ay fasaxeen real account waan ka qaatay ay ka hadla shaqaystaa marka ma qasaba passport oo kaliya laga helo ID ma leedahay ama no man that's no ID ma haysataa kaarka gaariga lagu wado ID no gaari ma wato ma hadda waa way kala malahan ya waxaad samayn kartaa walaalo waxaad samayn kartaa haddaadan ID lahayn baasaboorkana aada haysanin sida halka waxaa jirta in hadda su-aashiisa isku yaro dayo dad badan oo Soomaali jooga aan baasaboorro iyo ID iyo baalka darawalnimada aan haysan waxay isticmaalaan qof ehelkooda oo ku kalsoon yihiin ama waalidkood ama familygooda ahba ama baasaboor ama ID ama wax wata ay sharcigiisii ku samaystaan waayo qof familgiisii uu aaminsan yahay waa adig walaalkii walaashii aabihii hooyadii saas oo kale isticmaalaan inta badan dhalinyarta Soomaali jooga okay aad baa mahadsan tahay waa fikir fiican aan ku laabto walaalka isagana Muqdisho joogo walaal magaalada Muqdisho soo dawlad hoose ma jirto dawladda hoose maysan bixin wax kaar ah identity kaar maysan bixin ma bixiyaan miya soo ma garan way bixiyaan warqadda FX just kaar ID ramia wastalna lafta كاركا يعني كار صور كا وكسو وراني هاي national ID يلا national ID هذا يكفي نعم هذا سادو national ID gaas dawladdu waa bixin jirtay laakiin xilligan wixii ka dambeeyay markii la doortay Umar Finish waxa ka dambeeyay moo la bixin jirin xilliga waxa u dambeysay oo saabid u dambeysay kadib moo la bixin اوكي وراقه ku dhagan yahay laakiin waxa jid waqala walaal meel buuq badan baa joogtaa laakiin wax xadbad leh waa noo sheegaysaa laakiin meel buuq badan baa joogtaa hada ustaad aniga ma asala waa qof kale qof furiyo aniga ma waxa jirto waxaan ku dhahay okay Mr. Aadan codka xogan ka xiraya wax xigmad leh waxa jirto laha dhalashada sugnaan gobolka ay bixiso dawladda waa jirto okay bis waata walaal fiiri waxaad samayn kartaa walaalka hadda kan yiri arintaas waxaad samayn kartaa walaal aniga ma ballan qaadi karo inaad helaysid iyo in kale balse waxaad samayn kartid waxay tahay KYC-ga ma ka warqabay inuu aqbalay waraaqdaas sawirkaaga ma ku dhagan yahay sawirka ku dhagan yahay okay sawirkaaga haduu magacayga sawirkayga waxa dhan qoran okay sawirkaaga haduu ku dhagan yahay waxaad sameynaysaa payment-iga markaad sameysid kaas iyo waraaqda address-kaad soo diraysaa haddii ay dhacdo inay ku aqbali waayaan anigana waan la hadlayaa waan u sheegayaa xaaladda Soomaaliya ka jirto KYC-ga in uu yani kan aqbalo kale waan u sheegayaa haddii ay dhacdo inay ku aqbali waayaan lacagtaadina ku soo celinay noqonaysaa عايزت إن شاء الله وأنت جميلة. أوكي لكن وان وش يا سيستم محيل أنو لفكر موجن إنه سيستم كساسو أدقيه محيل واحد سداي كذا عادي أنا قلت يعني ورقد داس إسكان مرنا عيد مع بروف في الإنسيا FX بريماس وعيد على دراسة قبلها. أوكي ما وكل إسكو بروكريدو لهم حا استعمالان KYC هم بإسكو باستعمالان سودرس إن شاء الله haddii ay dhacdo in ay adkaato in lagu fur waayana lacagtaadii oo waliba aan ka go'eynin maadaama aan ka go'eynin waliba transferka inaan laga jirin anaga transferka dib aan u bixinayno ba insha Allah taala ku sameyn karnaa balse intaadan bixinin waxa la soo xiriirtaa chat support-ka oo u sheegaysaa inaan aniga saas ku iri doonaysidna inaad bixisid marka si qoraal ahaan Telegram-ka aad u haysatid in ay teamka ku ballan qaadeen inaad tijaabisid
haddii lagu soo diidana lacagtii oo transferka lagaa jiran laguu soo celinayo in aad tijaabisid qoraal ahaan saa u haysatid telegramka kala soo hadal kadib haddii qoraalkaas markay ku siiyaan تيم عاوية ولا تيم عاوية okay walaal السلام عليكم استاذي السلام عليكم والله رضوان وانك استاذ رضوان ridwan waxa ridwan waxa meeshan ka horeeyo abc shaakir waxaan qofkii saddexaad baan ahaa markii faraha la taagayay walaal ani qaab kale uu i tusaya ma garanayo wayna isku computer fariisan anagoo dhan hada laga bilaabo dib male waan sugayaa كل حاجة حروف تو يركل هرسينية ABC ده هو ABC استان كان كويرا سعودة وحان كويدين ريبي قف كميركو أكون كريه بيجا وفرتو مددنا هاي صدق عشرة صدق كعشرة ومين تريد فرا لقر ربع بس هذه اللي بعد عشان اللي تعيشوا تغلط وحنا قررت ده إنه أسبوعي هاي عن واحد تريد عن قادم مركب وحنا قربا إنه صدق عشرة وتريد فري أو حري يلا حسابنا يا mise maalmo qiiman oo suuq ku furnaa oo ah 30 cisho ah unba la xisaabinaya wax arintaas dhan midna yani mid lagu qasbaya ma ahan akoonkii adiga leh meeshan akoonkii baad waa kireysatay akoonkii waa tukaan waa sida tusaale ahaan tukaan baad kireysatay aniga iyo adigaas ku nimaanay tukaan دوان سي قادنينا يوسف ولا لمعن ولا العطس كحر يوسف باشا ولا مستر شاكر أكون كقصب مكوا أنت سوتشر قال له ما دهيو أمر له ممسيني أنت سوتشرنا كشيت أذي كوت على أنت بروفيت كوجاريس هذا أسبوع كوجارتي هذا لو ما نكوجارتي هذا بالكوجارتي وواحد أذيك كوسيوي طبعا دي waxaa jirta suuqu inuu maalmana aan wax tiriira baan u lahayn oo aad aadan suuqi aadan ku digdigin oo iska sugtay xilligu fursad ku siinayo oo kale adiga adaa lagu madax banaaniyay goorta rabtid baa galaysaa goorta rabtid baa ka baxaysaa yani haddaad rabtid soo qabo shida sadanka waxaan baan ka galayba marka oo targetkeyga aan ku gaaray saas ay ku kala dhanayso maaha yes waa adeeg ugu xiranta inta ku gaaraysid wax qasaba maahan haddii aadan xitaa trade galin oo bishaas oo dhan aada galin dee adun baad waxaad bixisay subscription waxaad bixisay yani lacag bahalka waxaa ku gureysatay xigmad darra ah so wax kugu qasbaya ma lahan inta soomaalina gashid waa si wanaagsan oo fahmay si wanaagsan okay هدرتان بان رضوان محمد سوري رضوان ما لكن لبر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام استاذ هل سؤال عن قضية أنا فيديو بس أول مرة رجع ساليسيو اوكي غيرته أقعد سنة اوكي رضوان ardaydu way ka horeeyeen iska dulqaado والله لا أنا كهوري may waxay rabaan in sheegay walaal meesha saan ka arko Ridwan Maxamed Ismaaciil baa horeeyay laakiin hadduu walaalkaas ku ogolaado in aad ka hormartid anigu culays ugu hayso haddii uu asagana rabo inuu isla hadda weydiiyana waa wax kale marka waan ogolaanaya ustaad waa qof walaalkaya laakiinse inuu dadka yara booba maaha waa inuu iska sugay ahaan lahayd laakiinse waa okay may haboobin dadka niyo adigana okay وأكون غيران نقول أصحابي هل سؤال عن قضاء سؤال شربنا كويدي واحد هاي minimum trading يعني 10 days أو كل سماء مس شايت وان مال مسلاويك so withdrawal كا ما إلا بش كلام أنا سنسوقها مس أحدا ولا بحكنا okay وسؤال في عن ولا لو مر ولا بقى 5% كارتيد لعبت هذا والله بحساب يعني withdraw سمينيسا لكن أنا كلا صارنو withdraw at سميسي أو أكونك withdraw at كسميسي يسوع جاريس إني كسوع جارت بنجيها كسوع دعوة والله ومدوي withdraw any time of 5% سميسي وات سمينيسا لكن أنا وحن أديك كسوع جارسين كرنا أو بنجيها كسوع ريدي كرنا بيشي هالمر بيشي مركز هاي دمات كده وكالته أديك سؤال لا تبستي لا تنكملاس كود بيشي أديك مركز وين كسوع ريدي كرنا اوكي وافهم سؤال شيء قوي هذا ما سنت أصحابتي عودة جنس مثلا مسنين اوكي استاذ
laba su'aal aan ku weydiin lahaa anigoo waa Ridwan. Su'aasha koowaad waxay odhanaysaa waxaan deganahay Somaliland marka ID Somalilander oo kan Soomaaliya ka duwan baa la isticmaalaa. Marka su'aasha labaad inaan ku weydiiyo aan rabin waxa weeyaan su'aasha koowaad half baa ka tagtay haye trade in ID-ga lagu samayn karo ID Somaliland iyo su'aasha labaad waxa weeyaan trading guideline-ka waan akhriyay halkan ugu dambeysay aad waxa jirta laba meelood oo currency typical position per account balance iyo typical dollar per pip maxay ku kala duwan yihiin labadaasna inaad noo yara kala sheegto Somaliland meesha oo ka bixiya meesha Somaliland walaal xushmad yariisaan inuu maxaa yeelay qof walba horumar gaari rabo ama raba inuu nafsadiisa inuu horumar u gaaro waa inuu qalbi wanaagsan u leeyahay marka aan xoogaa yar qalbi wanaagsan aan isku dayn inaan yeelano so walaal Ridwan haddaan usoo gudbo su-aashaada kaarkaaga FX Primes waa ku furan kartaa broker kale ku furan kartaa because waa ID so sawirkaaga hadduu ku dhagan yahay waa ID so identity way wax adiga ku cadeynaya inaad adiga tahay so waad ku furan kartaa kana waa yani maxaa yeelay KYC gu aqbalayaa ID kasta oo sawirkaaga ku dhagan yahay magacaagana ku helaysan yahay macnaheedu ugu weyn maxay tahay waa in meel magacaaga iyo sawirkaaga iyo addresskaaga wax cadeynaya oo bangiga aad ka soo qaadatay Swift code u yaqaana Soomaaliya iyo meel Swift code in labadaas hadii islahaadaan magaca inta ku qoran sawirka iyo magaca addresska yani KYC uu su'aasha labaad waxay ahayd maxay ku kala duwan yihiin walaal just simple waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay open position maanta tusaale ahaan trade qaadanaysa lot size-ka meesha ku qoran waa lot size-ka lagu ogol yahay marka inta trade qaadanaysid baad u qaybinaysaa ma laga wado maanta oo dhan trade-ka qaadanaysid waxa laga wadaa open waa inta ku furan tusaale ahaan waxa gashay 3 trade baa gashay waxa awood u leedahay lot size 1.4 aan dhaxno aro 1.3 so 1.3 gi 3 trade aa gashay baa u qaybinaysaa 0.5 0.5 0.3 0.3 ma fahmaysa baad u qaybinaysaa taas waa mid kale tangeeskan waxa lacagta waxa sheegaysa waa price-ka lacagta bibki intuu joogo يعني waxa caadigu hadda brokerada isticmaalaan waysan sidaas kuugu faafahin maan sidaas isticmaalaan yani bib wuxuu la mid yahay halkii bib intaasuu la mid yahay and waxaan kaloo leeyahay lot size 1 waa $10 lot size 2 waa $20 just waxa weeye maskaxda bini aadamka la qabsatay laakiin exactly maane price-ka suuqa markaas ay ku xiran tahay mar walba laakiin waa bibka laga wadaa price-ka aad ku iibsan kartid euro USD oo kale markuu 50k ga joogo account-ku typical position per account balance ku $1 marka ma halkii dollar baan kala qaybinaya marka hadhow galayo $1 waxa ku yaala meesha lot size 1 way macnaheedu 1.011 baa ku yaalo macnaheedu waxay tahay waa $10 lot size 1 waa $10 so 1.00 is $10 0.10 is $1 0.01 is 10 cent يعني hadii 1 uu geeskan soo xigsaday is $10 marka $10 kiiba u qaybinaysaa marka shan trade oo kala hadaan inaan ka furo rabo 0.20 oo kale 0.20 yes noqonaysaa oo halkii dollar ma dhaafinayo laakiin oo $10 dhigmay ya laakiin waxa laga yaabaa suuqa inuu awood ku siiyo meesha hadda waxaan ugu soo qornay waa waxa يعني قياسي بان سوق قادنا قياسنا مر والبا واحد سوق قادنيسا واحد دحدا ان 50 كيغا لوتس 1 يورو يو اس دي كبدن انو كو اوغلادا لكن 0.5 0.5 0.3 0.4 انو كوسي اوغلادا laga yaaba marka waxay ku xiran tahay volatility-ga suuqa ka jira laakiin anaga waxaan soo qaadanay middle-ka si hadhowtii ma fahmaysaa dadku aysan kugu buuqin ma santahay ustaad marka adiga taliye war ninka taliyaha soo qabta taliya ku jiro taliye taliye okay taliye ما شاء الله وني سو كب ان سو gabagabeyno magaca ka qusulsiina ya an soo gabagabeyno dad badan baa gacanta siita oh my god waxaan ma gaari karno muqdisho
muqdisho jooga waxaa rabay in ay cadaysid bis xawaalada sheegay sidoo lacagta dhigaay meesha ku taalo muqdisho uga taalo groupka public lama soo dhigin miya groupka soo kuma jirtid walaal groupka oo ku jira mana arkin okay mar labaad baa la soo dhigayaa groupka hadda kor u raacdi waa arkaysa anigu waa arkaa hadda ayaa maafin walaga caawinaya macallin yarkaas dhimala taliya walaga caawinaya saaxib Umay Express Allah meesha ku taagta wala yaqaanaa ay taliyaay okay Isa Ball su'aasha soo koobna Isa Ball Isa Ball okay ka gudub Roble Muhammad Ali وين مقلاد بيني سلامة يا روبلاناي اوكي مع عيسى بول باقفكي كاسو هرمال اسيغنا اوكي هي روبلي سؤال سو كوب ولا لو ادو راليا اولا لا بانو سو كوب يا بيني سلامة يا دمان انت ماشي جوجتا يا استاذ محمد علي واني ساكن halkan ugu jeedo su'aashaydu waxay daaran tahay marka laga hadlayo 5% ka waxaan u fahmay haddii aan akoonka gaarsiiyo 5% wixii ka badan waxaan maqlayay inkoo ka hadlaya haddii uu qofku sameeyo 15% oo kale uu 5% la baxo una dhigto 10% akoonka ayaa kornimo lagu sameeyaa intaasaan rabay inaad ii cadaysaan aad baan inii wada salaamayaa wad mahadsantiid ustaad okay waxaa jira walaal systemka wuxuu u ogolaanayaa dadka traderka oo hamiga dhahayo anigu waxaan rabaa lotteskiga inuu ii kordho kaleeto waxaa janiska u haystaa haddii tusaalahaan 10% uu sameeyey 10% lamuusa bixin meeshuu ku daayay taas macnaheedu maxay tahay lacagtii uu sameeyey meeshuu ku daayay riski buu geliyay wuxuu noqonayaa isaga laftirkiisa investor buu noqonayaa so maadaama qofkan uu meesha ku daayay uu yiri inaan koriyaan rabaa akoonkiisi waxa looga dhigayaa 100,000 markii looga dhigo lotteskiisi baa weynaanayo so 10% inay meesha ku jirtaa laakiin haddii uu mar kale 10% boqolka kun uu mar labaad koriyana uu 10% uusan la bixin yani 15 waa korin kartaa 5 baa la bixi kartaa laakiin muhiimadda waa inaad 10% oo korisa ama meesha ku daysaa oo cadeynayso qof dhahayo okay aniga lacagteeda xitaa meesha waan geliyay riskiga sidaas daraadeed marka investorku wuxuu leeyahay qofkan waa qof isuba waa u korinaynaa 10 kale markuu boqolkii markuu mareeyay 10 kale hadduu sameeyo akoonkii 200,000 bay uga dhigayaan so 200 markii looga dhigo hadduu 10 kale uu sameeyo aan ku dhameeyo waxay walaal hadduu mar kale 10 kale uu sameeyo oo haddana yiraahdo waxaan rabaa inaan u daayo 10keygii kale akoonkii waxa looga dhigayaa 1 milyan halkaas milyan markii looga dhigo akoonka 1 milyan markii looga dhigo bishii lacag ma uu bixinayo subscriptionki free buu noqonayaa so taas macnaheedu maxay tahay lotsaskina wuu weynaanayaa free uu noqonayaa laakiin anigu dadku waxaan kula taliyaa marka hore bal lacagta horta dhadhami la bax xoogaa macaankeeda dhadhami haddii aad 5% samaysay la bax maxaa yeelay lacagta markuu qofka gubo waa qofka markii uu lacagta qiimaheeda uusan aqoonin 5% ka qiimaheeda ma yaqaano socdiya baby nada muxuu socdiyaa 5% okay astaghfirullah okay waa ku waday walaal moha saki baa naga soo dhaxgalay question baa ku diinaa ustaad waxay tahay inta kale waan fahmay su'aasha aad baan u fahmay waan fahansanahay waxay tahay laakiin 5% salaana akoonka kotobkuna xogaa intee bay ka noqonaysaa 5% waan ka baqayaa inaan si fiican isula fahmi weynaba xisaabtii waxaan sameynaynaa horta wayna macallin xisaaba meesha soo fariisinaa mar kale أنا معلم حسابه مركا 5% ولا 2,500 كنتكم واو عبد الله يا وقت لو قالوا مني اوكي waa sax inta waan fahansanay laakiin waxaan ka baqay waxaan rabay inaan afka ka maqlo si hadhow ay ma taqaanaay inoogu noqoto shuruud aynu hadhow dimoogtahay caadi iyo meesha waxa ku qoran haddii percentage tahay oo wax percentage wax been laga sheega ma aha haddaan ku yiraahdo boqolkii 5% macnaheedu boqolkii 5% weey so marka waa 2,500 5% hadday noqoto waa 5,000 so 20% hadday noqoto waa 10,000 waa just numbers ma yani lacagta ku dhufsan kartaa intii tahay ustaad hal su'aal aan ku weydiiyo waa cali bootaan
okay caliyow wax yar aan sugno qofkii ku jiray wuxuu ahaa qofkii hadda ka hor ku jiray waa kan ka horeeyay si aan Isa Bol waa qofkii laga xoogay qofkii soo dahay waa Isa Bol walaal cali botan ma ogasha inuu su'aal soo dhax tuurto hormari asaga hormari ciise weydii okay su'aal okay ciise waa la tarcawada zoomkan iko muddo waqti ay sulu way ma salili weynay siyaabo jir awal marka caawan ku cusbaa marka ani information dheeraad oo ku saabsan gold life iyo waxa uu ku xiriira barnaamijkan video hor u duuban jiran ma heli karo oo warbixino kale dheeri xagee baan keenin karaa adigoo masan groupka ma ku jirtaa walaal telegram oo ku jira okay waxa jira website-ka booqan kartaa warbixintu dhanna meesha ku qoran tahay waxaan sameynayaa website-ka haddii aadan haysan Gold Star Life waa magaca telegram-ka ku qoran www. iyo magaca telegram ku qoran .com yani goldstarlife.com intaas un way website-ka booqanaysaa wax oo dhan meesha walaalka akhrisanaysaa oo master video ku jira okay waa tahay walaalayaal dad badan baa gacanta taagan gabagabeyno Sakriye Maxamed miyan gacanta dadka taago kamid ahaa معنا أنا أمر بوتام وأمر سؤالي رابعين أقول okay okay walaal Sakriye haduu hadli waayo oo ma ku fasaxo wan sameyn macal maxamed cali halbraan ka xaq galo gabadha gacanta hal gabadh san ugu jirta gabadha galo macal fahamuus gabadha qoran tahay okay hal gabadh u galo waata cali botan aan hal mar cali botan su'aasha soo gudbiyay walaal الأستاذ واحد كلام أهم واحد فيرنا يورو USD يورو GBP لوت سيس كلو جلاي حتى إيفا يورو USD أهلو وجانس أن كهلو يورو GBP أيضا أن جانس كهلو لوت سيس كما سامينا ين ومسي كل يوم قاعد كرا مسي هدي أن لودوان هو قالوا يورو GBP أيضا ما قاعد كرو نعم هدي نقول له سيداس تقول العقد بهالما نجوبي كرتي marka investorada marka ninka Pakistaanki oo Soomaalidu trade greening sorry ina soo يعني lacagta dhan bad ku haysaa walaal macquul ma ahan taas laakiin hadaa qaadid akoonka kontonka kun oo walaal trader yar tahay xitaa xogaa yar wax fahansan xitaa oo يعني lacag sameyn kara walaal waa ka sameyn kartaa lot size-ka waa enough way adiga markaad gadatid baa si fiican u arkaysaa واجد أستاذ ممكن دي مالها إن شاء الله ويحكي كل information okay waxaad ka mid tahay dadka akoonada haysto yes okay goormee baad akoonka hambaliyo marka hore ما سنت أستاذ waxaan filayaa insha Allah taala inaad laakiin waad ku dhiiratay yani stop loss kii baa waxa dhigatay just waxaan iraahdaa akoonka qiimihiisa daacadda marka loo hadlo waa dadka badankood stop loss ka meesha dhigtaan ama lacagta maalinta lumiyaan so marka ma umaleynaa inay cabsi badan ka jirayso marka balyo cali botan waxaan filayaa insha Allah taala in ilaahay kugula karab galo walaal waxaan sameynaynaa bal waa run gabar fahmo muuse la yiraahdaa jirto bal xuquuqda dumarkana hormarnina 30%. السلام عليكم. Okay walaal soo dhaw alaykum salaam. aad baa mahadsantiin maadaama intaas qof la iga hormariyay wallahi aad u mahadsantiin ustaad adii ardaydaba ninka Gold Star Life Funding Trader la baxay Muqdisho joogo baa fikirkaas keenay anigu ma fiirinaynin aad baa u mahadsantiin dhamaantiin macalin waxaan joogaa Istanbul Turkey marka sidee lacagta ku bixin karaa walaal waxaad sameynaysaa Omaya Express marka la xiriirtid agency-gooda bay kugu xirayaan haddii kale haddaad doonaysid waxaan sameynayaa waxaan kugu xirayaa nin ama team oo waxaa jiro haddeertaan akoon dalbanayo oo haddii bay soo wacayeen ilaa iyo waxay gaarayaan adiga 5 akoon meelahaas hal mar dalbanayo oo yacni partner ahaana raba inay noola shaqeeyaan oo niman ganacsata marka waxaan weydiinayaa nimankaas inaan numberkooda soo siin karo waa niman ganacsato xafiis leh
ayaga ku darsan kartaa ama Omaya Express baa toos ugu keeni kartaa because iyaga laftirkooda Omaya Express u dirayaan. Okay, aad u mahadsantahay macallin. Ardayda hadduu jiro qof Omaya kale furtay Express aan aadmo waan si fiican ula socdaa. hadduu jirto ardayda qof aba fahmo hada waxay raamada qaraxgan. Okay, waa ninka codka ku siiyay. معلمة Omaya Express aad baan u aqaanaa Telegram-kooda ma haya xataa maaragtay officials kaymaan oragas ku fiicanahay marka lacagta ay kan ku soo marnaa wixii maaragtay oo ID waxa waaye website-ka dhexdiisa aan soo gelinaa insha Allah teamka support-kana wala hadlaa marka insha Allah waa marka hore waxa tahay wiilkii kaarka. Okay, walaal marka hore Telegram-ka la soo hadal si aad u heshid xaqiiqda in qoraal ahaan haddii lagu aqbali waayo in lacagta commissionka aan laga qaadin isla markaasna lagu soo celiyo maadaama akoon lagu furin qoraal ahaan saa u heshid. Okay, fahmo u daa walaal. Okay, fahmo may hadduu jiro qof dad isdiiwaan geliya luuq inay kala soo hadlaan si la isku diiwaan gelin inaan ka wareyso camal dad isdiiwaan geliyay walaal waxaad isku diiwaan gelinaysaa website-ka Soomaalida booqan may xoogaa is caawinaa rabeyso hadday jiraan ay la soo hadlaan insha Allah. Okay, Moha Seki. Waalaikum salaam. walaal waxa sameynaysa walaal teamka la xiriir teamka ku caawinayaan sidoo kale haddaad joogtid Istanbul teamkan Istanbul joogo oo baan kugu xirayaa insha Allah. Fahmo insha Allah macallin hasanid Istanbul haddaad joogtid waa so Istanbul ma joogtaa ustaad ma joogaan okay Istanbul bay joogaan teamka Istanbul joogo baan kugu xiray magacoodan sheegaya bal sugiya Abdinaasir Arab mad garanaysaa ama Maxamed Ali Kalay may okay ayaga marka ku caawinaya waa kugu soo xiraya teamka la soo hadal ayaga markaas ku caawinaya insha Allah. xagee kala soo hadlaa marka waxa la hadlaysa support ka la hadlaysa mid kale caawin badan ma baahnid sida caadiga website-kun baa galaysa broker soo iskama diiwaan gelin kartid walaal soo iskama adiga ma diiwaan gelin broker-ka the broker-ka hadda iska diiwaan geliso kana waxa weeye registration-kun baad sameynaysaa payment-ka sameynaysaa account-kana waa lagu soo diray this is enough laakiin hadda u baahan tahay community kale kuwaas yani markay lacagta kan sidee kugu soo sheegaya yani inaan lacagtii bixiyo kale ilaa sawir ma ka qaadi karo ay dhano inay warqad dadka siiyaan si lacagta u bixisay si aan sawirkaaga soo qaado. Okay, samaysid walaal support teamka support team ka la xiriirtid aad bay ku caawinayaan iyaga wax kasta sid way ka caawinayaan because waxaan sameynaa anagu sida shirkadaha yani internationalka waxaan controlnaa quality-ga sida dadka ay ula hadlayaan sida dadka u qancinayaan waanu eegnaa yani teamka yani waanu eegnaa marka way ku qancinayaan anaa hubo marka lacagta bixima qoliyahaas la soo hadlaa miya ya support teamka la hadlaysa isla markaas mahadsanid walaal سكرية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ما يفهم أديك ما هو ولا؟ أستاذ أنا لهاي. أوكي مو هالسكي. أبو. إن سوق. أستاذ وكسلام يا. سي ولا ها. أستاذي وحأوبه إن صراحة العقل وحاجة أو correlation إسكو markii lacagtan bay aadis lacagtan sal aadis oo boqolkiiba 9.9 isku mid noqonayeen marka anoo Janiskaas haysto labadaas lacag ma gali karaa yes horta waxa jiro hedging waxa u maleynaya waxa aqrisatay hedging ka lama ogola sax so taas oo hedging ka kama mid aha midaan hadda sheegayso waa sameyn kartaa waxaan la ogoleen waxay tahay adigoo euro USD buy galay euro USD sell na gashid lama ogolo laakiin lacag kale waad gali kartaa any coalition lama fiirinayo okay thank you okay laakiin hal lacag buy iyo sell uma gali kartid waa wali wey taas qof waa la sameynaa way jiraan dad badan sameeya okay walaal هلا استاذ waa liga bilaabo malaynayaa codkii
sakariya sida caadiga sakariya ku xigay kadibna faysa sakariya ku xigay kadibna faysa السلام عليكم استاذ ducaysane wax yar sakariya iyo faysa ka horeeya هاي استاذ السلام عليكم السلام ورحمه الله saddex su'aalo rabina fiidiyo package-ka oo silverka iyo diamond-ka ah waxaa sheegtay diamond macnaha mar walbo inuu ku fiican yahay silverka soo marka waxaa dhahday diamond qofka hadduu percentage kuriyo 20% uu kuriyo waxaa laga yaabaa markaas 100k haddana inuu helo so anaga taas waa ognahay marka silverka positionkaas ma u furan yahay macnaha qofka hadduu 20% uu kuriyo 25k-da ma u furan tahay boosa inuu 50 macnaha u gudbo su-aasheeda labaad ustaad waa israacinaa saddexda su-aalood su-aasheeda labaad waxa waaye lacagta omaya haddaa ifisi ahaan ugu diro hadhow macnaha travelkeygii iyo ay kale ii fududeynaa inaan dib u helo intaadan u dirin waa inaad marka hore la xiriirtaa ama markaad u dirtid waa inaad screenshot ka qaadid whatsappkooda ugu dirtaa emailkaaga iyo magacaaga iyo screenshotka inaad dirtay numberkooda meesha ka muuqdo so laakiin waa ina ayaga la hadashaa kadibna emailkaaga iyo magacaaga noo soo gudbinayaan emailkaaga iyo magacaagana systemkeena ka fiirinaynaa oo ayaga waxaan haysanaa online aan ku xiriirno systemkeena ka fiirinaynaa systemkeena markii paymentigaaga ay success noqotay oo aan aragno akoonka markaas lagu dalbaya markaasaad documentigaaga upload karaynaysaa ustaad su-aashii saddexaad aa ku dhamaystiro tii koowaadna way taagan tahay su-aashii saddexaad waxaa waaye haddii yani realization oo kale aad trade qaatay almost waxaa waaye hit targetkayga waa achieve gareeyay waxaa waaye galabtii oo kale imaado opportunity arkay so marka fursadaas oo kale ma ii furan tahay mise waxaa waaye yani trade waxaa laba trade hal trade u qorshaysan package-ka qofka markii akoonka loo dhiibaa inuu trade gareeyo waana ka baxay ustaad waa maasan tahay okay ma waxba kuma qorshaysna xilliga meesha ku qoran tahay trade-ka aad furi kartid baa ku qoran xilliga aad furi karin xilliga habeenkii volatility-giisa xun oo split waxay kugu darayaan lacag dheeri bay dadku ku daraan habeenkii markaad trade gashid so marka xilligaas oo kaleeto trade inaad furtid lama ogolo laakiin kan kuu furan waa u dayn kartaa 50k-ga haddaad si kale kuusii iraahdo kuma xirna inta yani inaad kashid ka baxid kuma xirna waxay ku xiran tahay inta marginkaaga ama loteskaga uu ku ogol yahay haddii loteskaga wax kale kuusii ogol yahay waa furan kartaa maanta oo dhan kula laaban kartaa su-aashaadi koowaad waxay ahayd yani silverka sida diamond oo kale miya oo qofka haddii 20% uu koriyo ma la dhihi karaa haddana 50kii qofkaas uu gudbi karaa mise waxaa waaye diamond wuxuu koobaya walal 50k-ga kaliya midka 50 kaliya ama diamondka kaliya ayaa chaniskaas leh korinta laakiin chaniska korinta 20% ma ahane waa 10% midda oo laga rabo midda akoonka in lagu weyneeyo haddaa rabtid inaad 10% korisaa 50 kaliya leh okay faisa so adiga ku xigo walal dadka inaa isku badbatee ducaysan waxay rasuulaya marka ku ujeeda so faisa bobsi walal السلام عليكم أنا وسلامية وعلى جروب كذا دمانتينه لو سؤال بانقما أو قصة سن أكونك 25k سالو كله waxaa ku qoran shuruudaha overnight ka trade marka regardless on lot size ka togalayso suuqa for example haday maanta trade ka aan qaatay TB ku dhici weydo stop loss na ku dhici weydo 12 markay gaadho caawa ma automatic wuu isxirayaa isagu oo mar haddii khasaaruhu ayna kun ka badnayn mise trade-ka waad sii hayn kartaa taas waa mid labana waxaan jeclaan lahaa appka so app in aad video yar aad nooga soo samaysiin cause confusion baa ka qaaday marka in aad video kale aad kasoo samaysiin isticmaalkiisana waan jeclaan lahaa aadna waan ku salaamaya okay adiga mudan walaalkan 25,000 adiga mas'uuliyaddu waxay ka saaran tahay nidaamka lagu dejiyay inaad qaatid maanta haddii aan ku iraado walaal saasi sidaas sameeyo qoraalka aan kuu sheego aday mas'uuliyad ka saaran tahay in aad xirtid so haddii ay noqoto inuu systemka ka xiro waxaad galaysaa listiga traderada nidaamka aan ilaalinaynin
so marka inaad nidaamka ilaalisid aday kugu xiran tahay maxaa yeelay ka soo qaad waxaad dhici karto inaad lacag lumisid oo tiraahdo lacag badan inta kaa lunta aad tiraahdo waxaan rabaa akoonkayga inaan haddana mar labaad sii isticmaale adoo targetka lagugu talagala gaar marka waa inaad nidaamka ilaalin kartaa inaad adiga xirtida mas-uulka kaa saarta waana ku qasban tahay 25,000 habeenkii inaad adiga gacantaada ku xirtid haddaada gacantaada ku xirin systemka uu xiro waxaa galaysaa listiga traderada aan nidaamka ilaalinaynin marka gacantaada adiga ku xir midda Sobey walaal Sobey hadda marka systemka dhamaystirno waanu sameeynaa insha Allah taala waxaan doonaynaa xitaa ifana qoliyaha Sobey inaan ayaga laftirkooda ku niraano inay duubaan bal video ama anaga aan duubno ama qof dadka kamid ah uu duubo insha Allah waa fikir fiican waanu sameeynaa walaalayaal su'aalihiin way badan yihiin maxay laba qof saddex qof baarsan saddex qof soo gabagabay tala yar baan rabay inaan ustaadi ku biiriyo company-ga iyadoo raalli iga ahaanaya dadka walaalaha aan weli fursad helin Soomaalidu inta badan waxyaabo fara badan oo qaabka isku diiwaangelinayaan iyo qaabka loo marayo processka iyo meelaha la aadayo iyo cumaayo arrimahaas oo dhan waxay dadka inta badan hadal lama deeqsiin karo maalinba kuwa cusub ah imaanaya oo aan war ka haynin sida processka loo sameeyo habeen walbana live ii sheeg waxaan u malaynayaa waqtigoona iska sii gaabanayo waxaan fiicnaan lahayd oo aan anigu ku talin lahaa step kastoo la qaadayo in video kamila oo dhammaan stebyada loo marayo isdiiwaangelinta iyo processka oo dhan oo maqal iyo muuqaal oo laga sharaxayo ii sheeg dashboardka ama screenka in loo sameeyo dabadeedna marka dadku way ka kaaftoomayaan in su'aalo idin weydiiyaan way ka kaaftoomayaan in processkii ay caqabad ku noqdo waxyaalahaas oo dhan way ka kaaftoomayaan waa tala guud waana mahadsantahay macallin okay aad baa mahadsantahay waa fikir fiican insha Allah taala waan isku taxloojinaynaa taasna inaan sameeyno maxaa yeelay inkastoo dartaan maxaa la yiraahdaa dhinaca shaqaaluhu aad u yar yihiin ama teamka oo yani maadaama aan nahay start up aan nahay laakiin insha Allah taala haddii aad adoo kale aad tiraahdeed maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo video sida saas loo sameeyo oo wixii aad hore inta u martay aad tiraahdeed waxaan rabaa inaan saa u sameeyo walaalaheen u caawiyo waan ku soo dhaweynaynaa videogaaga YouTube-ka waa gelinaynaa meelaha dhan waan gelinaynaa inta ka horeysana annagana waa isku dayaynaa walaal waa aad baa u mahadsantahay fikir fiican so ducaysana ku xigo ducaysana walaal soo koob waxa weeye miitinaan leeyahay inaan cararaan rabaa أستاذ شكرا وما سنتهي أستاذ أرتو وحن قبي سؤال dadku moogtay horta campaign dadka oo ku cusub yahay mar dhawaan wala maqlay dadkana moogtay waxyaabo badan soo maray oo tugnimo iyo dad badan oo la xabay dadka marka campaign-ga shaki aad u badan ay ka qabaan marka isleeyihiin lacagta bixisiin ama urudin ku booda marka qaabkee looga shaki bixi karaa meel badan oo group badan oo lagu hayeen hadalkiisana waa arkay oo leeyahay campaign-gan ashmaana la iska ilaalisho marka waxa raba qaab looga shaki bixi karo wixii ay yihiin wax shuu ah okay waa su'aal aad u fiican adiga hal su'aal baan ku weydiinayaa lacag adoo targelinaya ma kaa luntay lacag oo targelinaya igu luntaa okay ma taqaanaa dad stop loss-kooda intay ka dhigteen $333 inay ka lunto ee ka luntay ama ka badan maalin lumiyo ma aragti weligaa واجد كبرنا جدا. So okay. marka koowaad stop loss kaagaba haddaad dhiganaysid 333 dhigan kartid awood u leedahay taana waxa ku dhilaa riski taker noqo brobe waxaan yaan lagaaga sheekeen qof kale uu kaaga sheekeenin adiga brobe haddaad doonaysid cadeemo kalena groupka Telegram-ka gal waxa arkaysa akoomadii la furay shirkadu intay jirtay akoomadii la furay baa arkaysa marka arintaasna markaan bilaabayay baan ka hadlay marka haddii akoomadii la furay magacyadii meeshii wuxuu dhan aad aragtid haddaa intaas ku qanci weysid systemka website-ka wuxuu ku yaalana ku qanci weysid waxaan ku dhihi lahaa bal iska sug inta aad ku qancaysid marka haddii aan diiwaan geliyo lacagta xaggaa lagu diraa marka meel xawaada lagu diray wax lagu dira ma jiro groupka ma ku jirtaa Telegram-ka walaal groupka Telegram haddaan ku soo biro leh okay bis
ninkaana share igu soo gaaray markaa ku dhuftay saasaan group ugu biir hadda okay marka telegramka kala soco wax walba warbixina halkaas aan soo gelinaynaa flyerka teamka collecting manager sameynaya ama noo soo dirayo meesha soo gelina wuxuu dhan halkaas ka fiirso hadaayina waan sharxay dhowr jeer oo kale saducaysan yani sila su'aashaas oo kale waxaan sharxay qaabkay dadka u waxaynayaan website-kana gal intaadan waxba dalban walaal maadaama hadda telegramka aad soo gashay ha dalban marka horeyso walaal website-ka gal warbixinta soo wada akhriso markaad ku qanacdid kaliya dalbo hadda ha dalban yani ha iska dalban adoo yani waxba warbixinta akhrisan soo akhriso wax kasto akhri fahan markaas kadib dalbo hay saa ma santa adiga mudan shakiga Soomaalida waa isaga wada jira laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ku daro walaalayaalow ayadoonan la aqoonin dad hadlayo oo Soomaali ahayn oo ajaaniba qolad ban weyn la yiraahdo Status Global oo website la iska diiwaan gelinayo ayaa lacag lagu qubayay walaa ayaguna xafiis furtay oo aan xaba aqoonin oo aad milyamaad qabtay oo fara badan oo loo dhiibay ayagu naftirkooda saaki kulamida waxaan u malaynayaa arrintan ayada inay fursad weyn siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah marka waxaan codsan lahaa inay iska yareeyaan oo ay problemyadii hore oo dhacay maadaama loo qatartaas loo bareerayay inay tan qatar loo bareero midii ugu fiicnay oo ugu fursadda fiicneed inay tahay aan aaminsanahay marka boqodinta la iska yareeyo ma hasan aad baa maaqsanta Cabdullaahi yar السلام عليكم أستاذي. اوكي فيصل يا فيصل عبد الله يا دكتور محمد سلاد باك عمها تاغين ugu dambeeyay هاي وما صنتها أستاذ هاي دكتور محمد سلاد واye walaal waxaan rabaa horta groupka waa ku cusubay si guud laakiin website-ka waan soo daawaday waa arkay waxa ku jiray dhammaan kambanigana waan uga mahadcelinaa qaab quruxda badan ee walaalada Soomaaliyeed u caawiyaan marka xigta waxaan rabaa laba su'aal inaan ku weydiiyo xogaa inta aan aqrinayo hadda website-ka kama aanan helin waxaa jiro kambaniyaal sidaan ka warrayno dadka qaar inay ogyihiin in kale ma garanayo kambaniyaal guud oo ka jira adduunka sidaa darteed ma sii gelayo waxaan rabaa marka lot size-ka ma wax cayimana mase waa wax open ah okay waxaad samaynaysaa su'aalaad fiican waxaad samaynaysaa markaad website-ka gashid qaybta trading guideline-kay ku qoran tahay yani sharciyada nidaamkii waxaan ku qoran yihiin meeshaas waxaad ka arkaysaa tabeelo weyn hoos ku qoran tabeelahaas wax kasta ku qoran yihiin marka akoonka diamondka ama 50k-ga haddaad tahay trader kaas baan kugula talin lahaa maxaa yeelay kaas wuxuu ku siinayaa chance up to ilaa iyo lot size 1.2 xitaa 1.3 1.4 1.5 lot size inaad ku gashataas macnaheedu maxay tahay halkii bib $15 yani adaa xisaabsan karo so marka kaas akoonkaas 50k-ga dadka kula taliyaa because sababta ula taliya waxay tahay waxaa ogahay 25 lot size-kiisa inuu aad u yar yahay ay ku adagtaa qofkii 5% inuu gaaro laakiin 50k-ga markay tahay lot size-kiina uu yahay lot size 1 wuu ogol yahay tusaale ahaan lacagaha caadiga 5% qofka uu samayn karaa marka halkaas wax dhan ku qoran yihiin okay Faisal Abdullahi Faisal Abdullahi أستاذي واكو سلامي وعبد الله waxaan rabaa inaan ku weydiiyo uma leem qalaa qof baa ka xogtay okay ustaad kulli qofna uma jeedo Faisal Abdullahi maya Cabdullaahi okay wado walaal sorry okay wuu maqan yahay marka waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo oo ka agdhow su'aashii walaalkay duceysane su-aasha ku weydiinaya waxay tahay sida ognahay hadda Soomaalina in badan suuqan inta ku soo jirnay waxyaabo badan oo waxa iska dhacay ha noqoto qayaana ha noqoto in si kale wixii noo lagu fasiro sideedana markii wax ama company la bilaabayo waxaa jiro dadka ma research baa lagu sameeyaa sida ogtahay oo meelo ka diiwaan gashan yahay waxaa jiro isheeg sida ogna hadda brokerska anaga lacagta ku shubanoo kale FX Primas oo kaleeto kulley waa ka warqabtaa waxaa jiro lacagaba meelo ka yaalo kulley systematically process qaab ay raacaana jiro oo hadhow haddii lacagtan tusaale dadka
oo fankooda ku shubtay brokerka haddii wax ku dhacaan oo kaleeto lacag baa meel ka taala lacagtaasaa hadhow magdhow ahaan dadka loo siiyaa so marka wax walbaa iska dhici kara marka ma jiraan meel la idiin raaci karo marka laga soo tago soomaalinimo iyo yacni in kambanigiina ma jiraan lacag meel idinka taala ama meel aad ka diiwaan gashan tihiin oo laysku halayn karo okay waa su'aalaad fiican walaal number 1 anaga banki ma nihin number 2 broker ma nihin oo lacagtaada aad u dhiibanaysid number 3 brokeradii bangiyadu waxay leeyihiin insurance wax la yiraahdo so insurance-gana yani waa brokerkii bankiga waajib ku yahay haddii uu dhaco yani sicir barar ma la yiraahdaa bank crash hadduu dhaco si uu awoodi waayo inuu dadkii lacagta u hayay inuu siiyo laakiin annaga adiga lacagtaada ma ku haynayno yani lacagtaada nooma dhiibanaysid ma rabna inaan lacag ma oran yani dadka lacag inaan u qabanno meesha mayna soo yani kusoo sharaxin waxaanu keennay system qofka system buu iibsanaya anaga mas'uuliyad waxa naga saaran laba waxyaabood qofka systemku iibsaday inaan gaarsiino ko number 2 hadduu profit sameeyo inuu systemkii profitka uu sameeyo aan u soo saarno laakiin lacag aan noo dhiibanaysa ma jiro sidaas daraadeed uma baahnin inaan insurance galno oo lacag aan luminayna ma jirto okay ustaad marka su'aasha soo laabanaysa waxay tahay system baa dhahday systemkan waa waxa idinka samayseen tusaale waxaa dhahdaa hadda lacagta annaga nooma dhiibanaysid okay lacagta marka ani idin shubaayo ma ahan mid tusaale marka aad trade gareynayo lacagta aad idin shubaayo ani kuma jirto account-kayga ama mastercard-kayga waa maray ka baxday tusaale omega kala idinku diray soo marka ani lacagta waa mar ee iga tagtay waxa ugu dhow haysto idinka marka see taas la isku qabadsiin karaa adna waxaa dhahday lacagta adiga kaama qaadayno systemkina waa waxa idinka samaysateen oo idinka as private idin ah ma wax annaga aan ognahay meel uu ka imaaday soo marka haddaan naga jaahil bixin karto okay waxaanu la jeedaa waxay tahay walaal lacag nooma dhiibanaysid yani laba waxyaabood baa jiro lacag dhiibasho macnaheedu waxay tahay lacag baan kaa qabana bangi baan nahay waa kuu keedinay taas ma nihin number 2 broker baan nahay baan ku dhahnay lacagteeda noo dhiibatay waan kuu haynay waan kuu keedinay so kayd lacageed baa insurance la geliyaa so kayd lacageed anagu ma nihin broker ma nihin account management kuma sameynayno lacagtaada noo dhiiba kumaynan oran bangi ma nihin kuma yani lacag ma kayd kareynayno waxa weeye waxaad iibsanaysa waa system so inaad systemka iibsatid marka adiga kugu xirantahay inaad ku kalsoonaatid inaad systemka helaysid iyo in kale so marka okay ustaad okay waa mahadsan tahay waana ka xumahay asxaabta ku jira su-aashiida aad bay u badatay laakiin waxaa kusoo gabagabeynayaa system ha noqda dhima lahan laakiin sidaa ognahay company ama yani company lacag dadka qabanayo ama yani wax uun u qabanayo ganacsi ah sidaa ognahay waxaa jira wax legal ah oo in yani soo diiwaan geliyo in uu meel ka diiwaan gashan yahay in haddii wixii lacag tagtana dee is-aaminaadba ma jirto sidaa ogtahay waa uu meel maraa wax meel ka yaalin oo meel loo raacdalaya marka ma jirtaa waddan ha noqdo ama waddanku noqdo meel la idin raacan karo oo as legal ah ugu diiwaan gashan tihiin hadda su-aasha saxday yes way jirtaa so marka qaabka hadda su-aasha u dhigtay waa qaabka saxda ah because waa qaabka annagana quseeyo aadna weydiin kartid so markaad booqatid website-keena terms and condition meesha ugu hooseysa terms baa ku qoran termskaas markaad booqatid waxaad ka helaysaa adresska register numberka everything baad ka arkaysaa yani wax walba halkaas ku qorayin waana ku qasbannahay shirkad ahaan inaan ku qorno because payment gateway-na lama siinayno tasmicneed maxay tahay kuwa lacagta collect gareynaya credit cardada sameynaya waxaasoo dhan na lama xaalayaan haddii aanan website-keena ku qorin waraaqda aan ka diiwaan gashannahayna aynan u dirin contractiga annaga shirkadda dadka lehna aysan u dirin passaportka qofka shirkadda mas-uulka leh uusan u dirin xitaa payment gateway laguma siinayo so marka annaga payment gateway labaa isticmaalnaa oo haysano oo active ah SoPay iyo MaxiCash waa credit card PayPal wax kasta ku bixin kartaa laakiin waa stop gareena laakiin inayna aqbalaan oo aan website-keena ku soo darno waxa kaliftay yani ay ogolaadeen yani ay timid kadib markaan u dirnay passaportka mas-uulka contractiga ama heshiiska shirkadda
concept planka inaad u dirtid waraaqda diiwaangelinta inaad u dirtid wuxuu dhan markaas kadib ay ku aqbalayaan soo baar systemkaas sida u shaqeeya isagana inta kale wixii dheerina terms and conditionka gal akhri walba okay aad umahadsantihiin su-aasheeda waa dheeraatay waa mahadsantahay ustaad waqtigaaga qaaliga ah waxaan filaya waan ka jawaaba ma dheeraan waa caadi laakiin marka hore su-aalihii hore waxay ahaayeen su-aalo aan anaga shirkad ahaan noqosin laakiin waan jeclahay inaan sharciyo dadka okay may ustaad waa wax loo baahan yahay waaye because sidaa og tahay soomaalida inta badan waxaan wax ilaa hadda nagu cusub inta badan dadka waqtiga aad waxa dhacana waxay tahay wixii in la isaga boodo waxa markay cusub yihiin okay walaal waqtiga aad u yar iga raali ahoo waqti badan baa ku siiyey because waxaan doonayaa inaad gebagabeeya waqti badan baan hal daqiiqo ustaad raali noqo waxaa rabay hal mar haddii suurtagal tahay waxaa jira website iyo badan oo jiro marka website kamid ah hadda isku rules ayaa tihiin oo websitekaas magaciisa haddii aan sheegi karo waa aan kulli magaca inaad sheegtid laakiin warbixinta guud baa noo sheexi kartaa okay warbixinta guud sida hadda yani markii loo fiiriyo lot size-ka marka loo fiiriyo sharciyada si loo gudbaayo dhammaantood isku mid aa ka tihiin marka waxaas dhahay isku mid miyaa soomaali may kasoo qaateen oo saas may heshiis ku galeen anigoo magaciisa aan sheegaynin oo hadda si guud yani adiga kula hadlayo markaan barnaamijka bilaabayay baan sharxay waxaa jiro funding package guud ahaan laba system baa jiro labada system oo jiro midna waxa weeye qofka demo baa loo dhiibaa itixaamaa laga soo qaadaa midna live account dad waxaa ka dambeeya shirkadaha ka dambeeya oo yani investoradii heshiiska kula jiro so waa laga yaabaa yani way jiraan shirkado badan aan kaa dhexgalo hal daqiiqo kambaniyaalkaas waan ogahay ma ahan kambanigan si saxa riya lagugu dhiibaa waa sida hal meel kuma kala duwadiin marka waxaan jeclaha in adigana aa og tahay oo aad dareemi karto anigana intaas aan ku ekeeyo marka waxaan jeclaha in macnaha adigoo saas u og aad si guud sharaxada iga siiso okay yani waan ku wadaa yani waxaa jira laba systemka demoga iyo systemka live accountiga okay systemka live accountiga investorra baa leh investorrada systemka loo diyaariyey shirkado baad systemkaasi kasoo qaadanayo oo la heshiinayo contract la galayo demogana sidoo kaleeto shirkadaha ayagana la wareegayo so waa laga yaabaa in ay tahay shirkad ka mid ah shirkadaha funding package-ka oo yani isku systemka isku nidaamka isku stageyo iyo waxaasoo dhan maraya waa tusaale ahaan bangiyada hadda ML bank iyo dahabshiil bank isku system way kaba soo tag kaas ka soo tag laakiin dahab markaan imaana broker walba waa isku system yani wax midkan wuxuu ku leeyahay ECM bahaya kan ECM bahaya kan wuxuu ku leeyahay variable kan variable hoos waxa ku wada qoran riski yani waxaan waa nidaam iyo sharci degsan oo international ah oo inaan wada raacna ay tahay so marka intaas uga baxaya so marka assalaamu calaykum ustaaz walaalayaal aan soo gabagabeeyo maanta dhan baan ku jiray so hello yes walaal waa ku maqlayaa ustaaz waxaan rabaa hal su'aal ana qabo su-aashaas waxaa waana accountka hadda 25 kaas waa hal bila isticmaala ama inaa bedelaa rabaa marka ma suurtagali kartaa inaa iska bedelo oo midka kontonka qaato yes waad bedelan kartaa anytime xitaa waad bedelan kartaa waad yani waad dhigi kartaa kaasa anoo bisha koowaad oo isticmaala midka 25 haddana kadib bisha labaad waxaa rabaa kan kontonka inaa qaato yes waad samaysan kartaa waa samey kara maano okay aad waa maasantahay sidoo ana hal su'aal qabaa walaalayaal waxaan rabaa inaan gabagabeeyno maxaa yeelay sida caadiga zoomka 30 daqiiqo ugu talagalnay wallahi waqti badan baan cunaa so su'aash okay qofka ugu dambeeyo hal su'aal okay walaal qofka ugu dambeeyo noqo haye sidoo akoonkaasi 30000 ama 40000 swap mu furan sino swap walaal tusaale ahaan waxaan kugula talinayaa inaad website-ka dib u soo akhrisid
because website-ka waxa ku qoran 5 markaad furatay tusaale ahaan waxa laga rabo wax walba meeshu ku qoran yahay yani soo akhri halkaas ka soo fahan yani macnaheedu maxay tahay ina adiga gacantaada ku xirtid baaba laga rabaa soo marka website-ka dib u soo raac soo fiiri waxa ku kala duwan yihiin labada akoon 2,500 oo kiina 5% ka 2,500 ma faa'iido ana ma qaadanay mise investor-kii ana isla leh wala waxa sameynaysaa waxaan ka codsan lahaa website-ka inaad dib u soo akhrisid because wax walba meesha ku cad yihiin su'aal ay weydiinayso because waxa weeye 50% but yani 5% haddaa samayso 5% haddaa samayso walaal 50 baa leedahay lagu yiri konton baa leedahay tas macnaheedu maxay tahay waxaad soo saartay baa konton leedahay marka adigu qaybi xisaabtii numberka adiga qaybi walaal yani waxaad soo saartid baa leedahay 50% igara laado walaal aad buu dhacay maxay la wallahi saddex waxay dhaafay dhowr meeting bay dhaafay maanta in la soo wacwacayaa waxaan wada rajeynayaa qeyr iyo maalin wanaagsan habeen aad wanaagsan